nin la dhihi jira mansuur wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibn alqaasim ibn maxamed ibn abibakar asidiiq i wacdi maanta markaasuu yidhi maxaan kugu wacdiyaa ma waxaan arkayaan wax kaaga sheegaa mase wixii aan maqlay markaasuu yidhi waxaad aragtay wax iiga sheeg waxaad maqashay igu kaadiyey markaasuu yidhi waxaan goobjoog u ahaa cumar ibn cabdulcasiis cumar ibn cabdulcasiis waa taabici waa ardadii saxaabada wuxuuna mararka ka mida xukumay muslimiinta oo dhan maahan qayb ka mid ah dhammaan cumar ibn cabdulcasiis nin taqiyuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah asagoo qaybinaya tufaax oo dadka u qaybinaya wiilu dhalay yimid markaasuu hal mir oo tufaaxa la cararay inta ka daba tegay oo gacanta qabtoo ka maroojiyu ka soo qaado waxaa iskale muslimiinta maalin maalmaha ka mida xaaskiisu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ma heli kartaa wax lacag ah oo aad noogu soo garto cinab markaasay tiri maya markaasuu yidhi khalaas waa iska sabrayna markuu sidaas leeyahay bunuugta muslimiintu asagu xukumo dhammaan dahabaa rasaysan waxaana uu gaaray inuu yidhaahdo yaan sadaqa siiya oo qof qaata la waayey uu gaarsiisan yahy dhaqaalaha markaas yaalla waa muslimiinta adduunka soo maray wakhtigay ugu dhaqaalo badnaayeen asagaa xukuma baarlamaan la xisaabtamayaa ma jiro maxkamad daba socotoo xisaabu xilminana ma jirto keligiisaa xukuma markaas islaantii waxay ku tiri adoo boqorkii muslimiinta ah inaad maanta weydo shilin aad canab kala soo baxdo masaxa markaasuu ku yidhi maanta canab iyo qudaar waa ka sabri karaa laakiin jaxiimo silsiladeeda kuma dulqaadan karo aakhiro marka qofka caqliga leh maantuu sabraa daacada allu ku sabraa macaasidana waa ka sabraa laakiin qofkaan caqliga lahayn iskuma miisaamo maantuu rabitaankiisa socdaa rabitaankiisa hawadiisu daba socdaa markaasaa jaxiima cuntaa wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibn alqaasim ibn maxamed ibn abibakar asidiiq cumar ibn cabdulcasiis markuu dhintay wuxuu ka tegey 11 wiil dhaqaalana wuxuu uga tegey oo uu ka dhintay 17 dirham 5 ka mida karfana loogu soo gaday 2 dirhamna dhulkii lagu aasayaa lagu gaday 2 diinaar 10 diinaara u soo harto loo dhaxlay 11kii wiil mid walbaaba 19 dirham u helay waa dhaqaale aad u yar oo aan ay dhici karto bil xataa inaysan ku filnayn sidaasuu ahaa wuxuu yidhi sidoo kale waxaa ahaa cumar ibn cabdulcasiis qaraabana lahaa hishaam ibn cabdilmelik oo boqor ahaa waa dhintay 11 asaguna ka tegey 11kana wuxuu uga tegey halkii wiil 1 milyan oo dirham ayuu dhaxal u helay wiil kastoo ka mida wiilashiisii waa wada joogeen waxaan dib indhahayga ku arkayuu yidhi cumar ibn cabdilcasiis hal wiiluu dhalay oo 100 faras hal maalin sadaqaynaya diinka koryeelidiisana ku bixina iyo wiilashii milyanka dhaxlay ee hishaam ibn cabdilmelik uu dhalay oo loo qaaraamanayo oo laleeyahay war hebel waa qadaya caawe qaaraan ha loo raadiyo ilmahaaga xaaraan looga tagaa nolol uma ahan waa dab adna waa naar wax ilmahaaga aad sahay uga dhigto adna aad saadataa waa la kacabsi weeye waxaan leeyahay marka walaalayaal naftiinna ilaahay ou anaga baqno ilaahay aan ka baqno ilaahay weyna aan ka baqno cadaabkiisa aan ka baqno ilaahayna kama baqo qofaan oqoon lahayna diinka alle aan baranno wuxuu alla jecel yahay aan garanno samayno waxa alla necab yahay aan garanno aan ka harno kelimadeydana intaasan ku qatin wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed